markii badda nalaga soo badbaadiyey ee markabka nala saaray rajadeedii wax irkaas ay martay waxaan noqonay niman Yurub soo galay niman rajadoodu waanatay niman yacni dharka laga bedelayo niman lacag la siinayo allaahumma salli ala niman waxa weeye sharci lagu taxayo oo dabeetana dhexda iska xidhayo suuqa galaya kadib waxay noqotay arrinkayga inuu noqdo karantiino dad la ilaalinayo caafimaadkoodii aan la garanayn yacnigii waxay yihiin aan la garanayn lambarraana loo sameeyey sida xoolaha xoolahana lagu xidhay lambarra yaryar qof kasta lambar yar baa lagu xidhay oo sida ama ilmaha yar markuu dhasho kale beebiga yari dhakhtarka oo kale lagu xidho waxaan haddana niyaddii waxay noqotay niyo talow dee waa sidee gorme waxaanay dhammaanayaan kadib waxa weeye markii nalaga dhammaystay dantoodii naga dhammaystay inana baadheene caafimaadkaygii waxay noqotay in naloo kaxeeyo xaggan yar duga in naloo kaxeeyo kaamka meel kaam oo xero ah oo xidhan oo yacnigii military loo qaabilay still inaanu nahay under arrested yacnigii waxa weeye waxaan gacanta nagu hayo waa military sharcigii iyo wixii freedomkii markaanu soo baxnay nolosha haddana mar labaad bay kasii adkaato meeshii waxa la yidhi freedom baa tiino waad bixbixi kartaano halkii un baanu sii deganaanay jeelkii shaqo waddankii yacnigii aanu ka samayn kari lahayn mid ka kun jeer ka adag ayaanu la kulannay waxa weeye beeraanu ka soo shaqayn jirnay isdherdhignay waddankii haddaad sidaan uga shaqaysan lahayd maxaad samaysan lahayd waxaan wax ka weyn baad samayn lahayd shaqada waxaan uga tegey oo yacnigi waxa weeye waad sii joogi karaysa laakiin baragshar baa jira baragshirkaas waxa weeye wuxuu kaa saaran yahay nimankan sharciga waxaan ku siiyey waxay leeyihin waddankan annagu dadkan ma qaadi karno waddan yar baanu nahay waa inay dadkani ka baxaan adeeg waxa weeye yurubtii maalta yurub noqon weyde laakiin yurubtii baanu doonaynaa waxay noqotay inaanu ka soo dhoofno maalta in maalta aanu ka soo dhoofno oo yurub galti kala gallo anigu maalta marka ka tegey waddamo aad u fara badan baan soo maray waxaan tegey Switzerland baan uga dhoofo diyaaradu raacay wixii ka dambeeyayna tareen baan isticmaalayay ilaa iyo Norway Faransiiskaan tegey 2 week baan joogay kadib waxaan ku fakeranay tareeno kale oo London iyo Ingiriiska aadina ku dhuumano ma ku suurtagelayso kadib haddana Holland baan usoo talawnay waxaan ka rajeynayay noloshii aan markii hore ku tala jiray aan waddankii kaga soo taariibay ayaan Norway markaa ka rajeynaya Norway waan tagay tiina kumaan arag runtii yacnigii Norway kale markaad joogto dadkan aad sharciga weydiisanayso waxaad kala gabanaysaa inaad u sheegto exactly dhibaatooyinkii ku soo maray iyo waxyaabihii ku soo maray sababtaad uga tahay in sharciga lagugu diido in ma garanaysaa lagugu adkeeyo in laguguba celiyo barta aad sheegatay iyo waddada aad soo martay ay wax kaaga iman doona marka waxay noqotay kaamkii baan iska joogay muddo 8 bilood markaan joogay yacnigii waxa weeye da'daan sheegtay maan hubin sababtu tahay waddankii waddankayni ilaa xilligaan dhashay wuxuu iska ahaa waddan iska dhiman wax caddayna maan haysan da'uun baan iska sheegtay da'dii aan sheegtay dhakhtar baa laygaga dhacaana laga qaaday da'daa ma tiid baa la yidhi negative wax baa la siiyey kadibna fariin baa soo helay maaltaan kugu celina baa dhahdan kadib baasaboorkayga yaraa waan haystay shadada iskaga haysto qarsaday oo u harsanayd muddo 3 bilood ayaan ku tegey Sweden baan tegey waan baxsaday waan ka baxsaday leeyma mastaafirin yacni waxa weeye dadka ama ku jira qof kasta wuxuu ka fikirayaa faro qaar baa farahooda googooyay farahana la googooyay yacni waa u soo taagnaa aniga qudhoodu waan sameeyey mar aan isli googo faraha gebigooda waa yacni waxa weeye qaar dad dhiig ka keenay baa jiro qalay yacni dhibaatada inay ka badbaadaan dal kale marka tagaan oo Yuruba dalka ay ma garanaysaa wax ka helaan farahoodii bay googooyeen makiinad bay ku xoqeen anigu waan hal mar waan ku dayay laakiin waan u adkaysan waayay dadku way kala adkaysan badan yihiin farahayga markaan xoqay waa yacni dhibaato badan baan dareemay marka arrinka waan yara gubay maraan gubay way jirtaa xitaa oo farahoo dhan waxaan u sii dhaafay Ireland aniga oo doonaya inaan halkan imaado Ingiriiska Ireland markii aan tegay sharcigaygii waxay iga taagtay waxay igu dhacday sharcigii maalta taagtay waxay igu dhacday diyaaradda iga tagtay lacag waxaan haystay iga qasaarowday bilaa lacag baan la imaan anigoo saasa sharcigan taagtay xaggaad ku socotaa hudheelkaygu waa hudheelkaagu shalay buu ahaa gasbayr weeye maanta maxaad ku degaysaa maanta meenaan ku dego ma garanayo waa sidan oo shalay buu isdhaafay wakaa waayo waxayga oo dhan baa ah wax kooban oo hadday iska ka qardhaafaan way iska ka qardhaafeen
kadib sharciga way iga qaadeen shaabad isku tallaabay ku dhufteen marka waxaan isirday meel bay ku geenayaan waxay geliyeen suunka la iga furay kabaha la iga siibay meel jeele baa la geeyay oo dhagax habeenkii lagu seexanayo furash dhagaxa suuliguna uu yahay suuli yaro daloola oo halkan oo weligeyna daanan ku aragnay wadankeena aanan ku arag runtii aanan kuna gelin halkii baan galay halkii baan habeenkii oo dhan ku jiray leer kuma damayo waa leer ku dhibaya oo ay u tala galeen qofka ciqaab oo kale yani markaad u fakarto waxaan waayo waa leer electric waxba ku jira waayo leerka caadiga xitaa waa laga seexda laakiin kan ma ka seexanayso dhiigga uu kacsan yahay iswiidha baa lagu celiyay iswiidha baa nagaga timaa leeyahay iswiidhan ku noqo iswiidha baa tiri soo celiya iswiidha baa anaga maalta ku celin doonay idinku soo celiya gaari boolis bay qaaday meel baa lagu xiray kaamkii baan ku jiray 4 week waa ka xiran tahay ma waa jeel waa xirana kadib faraya baa laga qaaday maalta lagu celinay maalta caynkaas diyaaradda British Airways ku qoran tahay waa sida iska sug falaydkayga baan iska sugay maalto aan sanad ka hor ka imi oo yani waxa weeye noloshana aan adeegeeda wixii ayaan ku noqday magangeliyadii aan wadankii ka imi Yurub baan haddana magangeliyadii marba wadanka dhib sheegtay oo wadankana ay dhibay markii horena wadankayga baan ka soo cararo de ma garanaysaa aan yani dhib ka sheeganay haddana Yurub baan iyadii un kala dacweeyo marba qol ay soo dhigtay